ururka ardayda Soomaaliyeed ee SSF ee wax ka bartay jaamacadda Oslo ayaa ku qabtay xarunta jaamacadda kulan ballaaran oo dhiirigelina waxaana kulankan ay joogeen boqolaal arday laga soo jeediyay khudbado ku saabsanaa iskaashiga dhalinyarada waxbarashada nolosha iyo qodobo kale. Ifraax Yuusuf Ciyo oo qoraas Soomaaliyeed oo kulankan ka hadashay iyo qaar ka mid ah guddiga ardayda Soomaaliyeed ayaa gabagabadii kulankan warbaahinta qaranka uga warramay dareenkooda maalintan ay isu soo baxeen ardaydii ugu badnayd abid madashan oo kale isugu soo baxda magaalada Oslo. aad iyo aad u faraxsanahay seminaarkan waa seminaarkii ugu weynaa oo sanadlaha ahaa kor askiin baro Yusra Ali Yaxya gudoomiyaheena Cabdi Fataax Ali Baasha economy Asfarli Abdullaahi gudoomiye ku xigeen yaanigo istiir madlaam ah waxba macnaha Soomaalka ahaada habeen kamid ah maxaa la maamulka waxa farxad weyn noo ah telefishinka qaranka waa salaameena ummad Soomaaliyeed guud ahaan waxa sharaf weyn noo ah inaan ardayda Soomaaliyeed ee Norway degan ku dhiirigelin inay wax bartaan si berrito dalkooda wax u qabtaan dalkan ay joogaan wax u qabsadaan wadankan waa wadan waxbarashada ee lacag la'aan ka tahay oo loo baahan yahay waliba wadamada adduunka u tayada badan waxbarashada ay tahay oo ra'iisul wasaaraheennii halkan aan taaganahay ayuu ka baxay wasiirkii waxbarashada dad badan oo aqoon leh gudoomiyaha baarlamaanka markuu waxaan dhiirigelinaynaa hogaankii mustaqbalka soo saarno أنا مقعد ويسرى علي قدام ذي أساسف دد أساس وفربضن أو إيماناي أو موتيفيت كوه يتانين وحبر الشدة أنا بفرح سنة الحمد لله والله سنة كان آد أي وجود بنت هاي السنة دي هراء محيلي دد آد تربضن أي إمادي مناسبة داني مركز درين كن آد أيو ما تقول هاي لما تلمامي كرو qaabka aan dareemayno marka waxaan arkaynaa dhalinyaro badan oo imaaday oo na rabo inay helaan warbixin waxbarashadii iyo qaabka ay wax u baran lahaayeen waxa dareem aad iyo aad u faraxsanahay dad badan ka soo qayb galeen maya waxa la barto mustaqbalka Soomaalida ee dalkan waa mid aad u wanaagsan way yartahay dhacdo lagu arko ilaa 400 500 ay arday ah ee dugsi sare ka yimid meel isugu yimideen aad u yartahay maanta halkaan ay ugu jeednaa taas macnaheedu maxaa weeye mustaqbal wanaagsan aan leenahay iftiina soo socdo mar dhow Norway waxa ka mid noqonaynaa dadka ugu sareeya bulshada waxa dhiman oo kaliya waqti yar marka waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed adkaysiyaasha horena u socda tan kale to muhiimka ah dadka wax bartay sida maxaan kula jaamacadii hore ka soo baxay inay joogaan waxay tusaysaa dhalinyarada inay jiraan dad Soomaaliyeed wax bartay inay jiraan dad Soomaaliyeed aqoon yahana ah in qof walba Soomaaliyeed oo wax baran karo inaysan qaadanin sawirka xun oo mar walba Soomaalida media looga bixinayo kulankan ayaa ahaa mid ardaydu ay si xooggan ay uga soo qayb galeen waana markii ugu horreysay kulan noocan oo tira intaas la eego Soomaaliya u soo baxaan taasoo muujinaysa in Soomaalida dhalinteedu ay ku dadaalayaan waxbarashada inay ka mid yihiin dadka xoogga ku leh ajaanibta ee dalkan degan ee jaamacadaha ka qayb qaata. Xasan Saciid Xasan Rasta SNTV magaalada Oslo.